haddii la yidhaahdo firaqa iyo axsaabta lala yimi ee muslimiinta loo qaybinaya ee hadda macruufkee la yaqaana qarnigii 14 iyo wixii ka dambeeyey soo dariday waxaa la odhanayaa amin addiin aladii ballagahu muxamadu sala allahu alayh wasalam can rabbi ma diintu nabi maxamed dadka soo gaadhsiiya ka mid tahay fain qaala laa faqad intaha alamru arrinku waa dhammaaday waa bidci ka taga wain qaala nacam qiila lahu fadkur lana daliilah hadduu yidhahdo waa ka mid diinta muslimiinta in la qaybqaybiyo oo firaq iyo axzaab loo qaybiyo oo qolo waliba markaysa markaa amiir iyo taaca ay yeelato taaca mulzame ah iyo amiir ay yeelato ayaa mashruuca haddii la yidhaahdo diintay ka mid tahayna fadkur lanaa daliilah daliilkiisa noo sheeg wahaakada wain qaala nacam qiila lahu fadkur lanaa daliilah daliil keenso ya muxuu ihi daliil keenso waa iyada waa dareensaday daliilba layma weydiin jireen waxaan idhahda unbaa daliil iska qaadan jiray ciddii ahludalaali waxay iska rabtaa inaan la odhan markaysa markaa waxaan yani ma daliil ba sufyadi maxay yidhahdeen man qaala lishaykhihi lima laa yuflixu ka shiikiisa ku yidhahda lima maxaa u daliila sababtu waa maxay cilladu waa maxay daliilku waa maxay laa yuflixu liibaani maayo maxaa la rabaa indhali dhegeli shiika indhaa ya isagaa wax ii arka bes dee isagaan daba hagabsanayaa aragmo haadaan kaa tuuraa war sharcigu daliil buu ku dhisan yahy qul hadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii calaa basiira marka xujo cad baa la doonayaa in lagu raaco